wax cusub maahan in magaalada Boosaaso uu ka dhaco weerar qorsheysan habeenkii xalay ayay ahayd markii weerar lagu soo qaaday guri uu magaalada Boosaaso ka degan yahay taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Puntland General Muxudiin Axmed Muuse waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan 5 nin oo ku hubeysnaa bambooyinka gacanta iyo qoryaha fudud ee darandooriga u dhaca ayaa weerar gaadmaha ku soo qaaday bar control oo ay ku sugnaayeen ciidanka General Muxudiin u taalay afafka hore ee Hotel Barnaama kooxda weerarka soo qaaday ayaa la socday gaari bas ah si kadisa ayay gaariga ugu soo dageen iyagoo intaas kadib tacshiirad hubiyay ciidankii barta control ku sugnaa weerarkaasi waxa ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa ilaalada General Muxudiin afar kalena waa ay ku dhaawacmeen halka ciidamada ammaanka Puntland ay dileen laba kamid ah dableedii weerarka soo qaaday ciidamada ammaanka Puntland ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 3 kamid ah ragii weerarka soo qaaday iyo gaari nooha oo ay wateen kooxdaasi saraakiisha ammaanka Puntland ayaa maanta ka warbixiyay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso isla markaana warbaahinta u soo bandhigay rag ay ku sheegeen inay qayb ka ahaayeen kooxdii weerarka xalay geysatay taliyaha ciidanka booliska Puntland General Maxamed Saciid Jaqanaf oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in xalay bar control ay soo weerareen rag ka tirsan xarakada al-shabaab waa ninka ciidanka dhaawacay muddo badan oo dagaalamayay ninka kale tan waxay kamid ahayd qoladii gurmadka ahayd afar nin oo soo gurmato gaarin noo haawatay ciidanka raacay horeeyay caawimaadkooduna waa ka dhaawacoodina waa haynaa tuunsanahay inay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Somaliland sababtoo waxa way waxyaalaha cadaynta ah lacagtaas ay isticmaalayeen lacagtaasna waa lacag Somaliland iyo bastooladaas waa cadowga ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto argagixiso burcadiimeeda way dadka gabaadka siiyana deegaanka way dadka ay ku soo gabanayaan deegaanka way gurigay degayaan hotelkay degayaan meelahay ka yimaadeenna calaamadooda laga hore badanna waa haynaa kuwa badan baan haynaa oo kuwii ku dhintay diindigle jeebkooda laga soo guray qaar mushaar loo siiyay xataa aanu u malaynay in mushaar loo siiyay baanu haynaa Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed Home Cable TV magaalada Boosaaso